waa qaybtii saddexaad qisooyinka nebiyada. Waxay qaybta hore inoo maraysay nebi aadam iyo xaawo oo la faray inay dhulka yimaadaan. Dhulkii baa la yimid. aadan iyo xaawa markii ay dhulka yimaadeen waxay bilaabeen inay cunto raadsadaan. Nebi aadam waxa uu yaqaanay waxbarashada, wuxuuna guda galay inuu cuntadiisa soo saarto. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu faray in arlada la camiro oo la dego. Waxaa sidoo kale soo kordhay caruur ay dhaleen nebi aadam iyo xaawa. Halkii mar waxay dhalaysay mataano 2 ilmood, wiil iyo gabar ah. Markii ay koreen waxaa la faray in wiil kasta loo guuriyo gabar aan caloosha la wadaagin. Ma banaanayn in wiil iyo gabar mataano ahi la isku guuriyo. Haabiil iyo Qaabiil. Hooyadan xaawa uurkii koowaad waxay siday wiil la oran jiray Qaabiil iyo gabar Kaliima la oran jiray. Markii xigay waxay siday 2 ilmood oo la kala oran jiray Haabiil iyo walaashiisa Labuuda. Qaabiil wuxuu ka shaqayn jiray beer, Haabiilna wuxuu ka shaqayn jiray xoolaha, waxayna saacidi jireen labaduba waalidkooda. Waxaa la gaaray xilligii labada nin midba kan kale uu la aqalgali lahaa gabadha walaalkiisa la mataanta ahayd. Xilligaasi ma jirin insaan kale oo isguursada. Nebi aadam duriyadiisa si ay u fido, wuxuu faray guurka iyo cibaadada. Nebi aadam baa yidhi, Qaabiil wuxuu guursanayaa Labuuda, Haabiilna waa inuu guursadaa Kaliima oo la sheego in ay aad u qurxooneyd. Qaabiil ayaa arrinkii ka xanaaqa oo yidhi, Kaliima aniga ayay ila dhalatay, aniga ayaana guursanaya. Nebi aadam baa u sheegay inaysan bannaanayn arrinkaas, balse Ibliis oo cadaawad u qaba nebi aadam ayaa u soo xaluushay dhashii nebi aadam. Haabiil iyo Qaabiil waxaa la faray in midba uu la yimaado qurbaan uu ugu dhowaanayo Alle subxaanahu wa tacaala. Si loogu kala baxo arrinkan, ninkii qurbaankiisa laga aqbalo ayaa guursanaya Kaliima. Qaabiil wuxuu la yimid in yar oo beerta ka soo gurtay, halka Haabiil uu la shir tagay wan aad u weyn oo buuran. Qurbaanka waxaa lagu aqbali jiray in dab uu samada ka yimaado oo wixii la keenay mid uu ka qaado. Dabkii samada ka yimid wuxuu abbaaray wankii uu Haabiil la yimid. Qaabiil ayaa ka hinaasay arrinka oo aad uga xumaaday. qaybtan halka ha inoo joogto. Soonka iyo acmaasha wanaagsan Allah haynaga wada aqbalo. Muuqaalkan la wadaag walaalaha kale si aad ajar uga heshid insha Allah. Ramadaan Mubaarak.